cabdirashiid ayaa intii uu dib u soo booqanayay dalka waxa uu jeclaystay inuu soo arko goobtii uu ku dhashay iyo gurigii uu ku soo barbaaray si uu xasuusta noloshiisa dib ugu jaleeco maadaama aanu magaalada waxba ka xasuusan ayaa waxaan la ballannay habaryartiis oo mar uu booqday maalin ka hor u sheegtay inay soo tusi doonto gurigii uu ku noolaa yaraantiisii markuu soo noqday hadda intaas muddo dheer ka sheekay halkan ninkan intaas maqnaa hadda muu soo degay laakiin halkan إنه زوديو إن شاء الله ما شيء إنه زوديو بس إن شاء الله إنه زوديو ورجينين ما دو وأقل فيه شو قصته ورجينين سرحنا إن شاء الله إنه على صوديو ورجينين إن شاء الله إنه يمادو لكن قربه الروين وش كذي جوجان ملاني مكاني والبابو كيف سيلو وش لكن جو حتى ما قربها هالكاسم بكو هنتيا هاي وحري وري قابل بابو مقالة شوق تبغى قرا يوم بكو هنتيا الكاسم بهنتيا عيد عيد هذا سمع هنتيا ما قرأت هالكاسوات هتكش قيس ما قرأت هالكاسو ما هنتيا مركه هالكيان الموجان وش هيك ساكن ما قلنا والله ما شيء واني يردي سبت البحثنا صوبرتي ما بتاعي ولي بنا اسمي واحد يدون سمين كره وين هالكن دسام ان شاء الله ما يواد دسيا وابن اسكوغني تا انا قلت لي دي ما حتى مي خيامين ايا حتى مي خيامين وش هيك ما عاد ما عاد inkastoo aanan hubin inuu cabdirashiid qaatay talada habaryartii oo yaraantiisii nooga sheekaysay ayaan waxaan u dhaqaaqnay gurigii oo cabdirashiid ugu dambaysay carruurnimadiisii waxa uu booqday goobtii uu ku soo barbaaray meelihii uu yaraantiisii ku ciyaari jiray iyo guri xasuustiisa dib ugu ceshay wakhti ka duwan kanuu maanta ku soo booqday maalmihii ugu fiicneed intaan dhulka joogo waxay ahayd maalintan gurigii meeshii aan maanta ku soo koray aan tagay horta marka hore guriga moogta dee 28 years 28 sano dhulka ka maqan moogta ma ogeen moogta meel waxaa markaa habaryartay baan helay aan ka codsaday inay maanta guriga soo tusto بري ألعاب لنا كذا حدا وقرت هذه إيه هل كان هو بات كم كان تانك بسرعة تري صح وتهال كي تانك ما قرت كان بري واحد يقول لك لا هربت ما هل كان جيت كدامل كقرنيسي جيت كدامل كقرنيسي كانوا هاي بلاد كقول صح وان مقنعي اسم بالي عبد الرشيد waxa qabsaday layl waxaan sideen intaan tuuray baan adigoo saa u jiifa ku soo gal marka sadeetana waxba maad noqon in yar ku taabto صح waa ka balag xerar riyad ba halkan laga dhigay laakiin kaaba dheer ay kana waxa weeyaan waa kan gurigii dabeetana dabeeda dad ku jire waa rune lagu jire haday ilaan tusba tiro waan kaay berendida mana soo madis berendida mana soo madis xaga damana ka وكا حاجة دمنا حتى بقى يعني marka wallahi nabiga waxa uu soo kordhay moogtay emotions strong emotions soo xasuustay saan soo koray moogtay childhoodkaygii iyo saaxiibaday iyo environmentka sidoo ahaa markaas ayay imagekii igu imaatay igu soo laabtay aad iyo aad baan maanta ugu farxay wax weyn oo iga maqan waxaad mooday maanta moogtay inuu igu soo kordhay iyo to complete the picture marka aad iyo aad maantaas u fiicnayd ma garanayo xasuustaas iyo taariikhdaas hore ee soo maaxatay inay ku dhiirigelin doonto inuu ka mid noqdo inta go'aanstay inay dalkooda dib ugu soo noqdaan hase yeeshee waxaa galabtaas wejigiisa ka muuqday farxad aan la qiyaasi karin beegsiga dalxiiskaaga beeladkaaga soo haybi boorame ku daanshood batalaaleyo soo arag berberaay magaalada hargeysa haddii aad ku dhex socotid waxaad arkaysaa qurbo joog dalal kala duwan ka kala yimid oo fasaxyo gaaban
ama dalxiisba halkaas ku jooga. inkastoo ay fududahay in dadkaas badidooda aad ka soo dhex sooci kartid dadka intiisa kale, haddana way adag tahay inaad farxaan oo malabka ku gada waddooyinka magaalada agteeda aad ka soo dhex socdo dadka deegaanka. waxa uu Farxaan ii sheegay inuu ku noolaa waddanka Maraykanka inta aanu hamiga malabgadidu ku dhalan dalkana dib ugu soo noqon. waxaan ka imi magaalo la yiraahdo New York State, which is United States bay ku taallaa. ilaa 14 sanadood baan deganaa. dalkii waan iskaga imi marka magaalada Soomaaliland ma ku soo noqday dalkii hooyo aabo oo wax mid kasta wuxuu soo noqonayaa uu shaqo tagaya xagga inuu soo noqdo oo waxtar magaaladiis dalkiisii keeno. marka waxaan keenay wax la yiraahdo in malab saafi company aan asaasay. shinni badan baan dhaqday ilaa 140 saxaaradood baan samaystay oo aan ku kala aan digdigo ilaa Boorame ilaa iyo in magaalo la yiraahdo Negele oo dalka xitaa Ethiopia ku taala oo iyo buurahan gacan libaax daalo surad meelahaas oo dhan oo sirta nolosha baashan la yiraahdo dalkeenana aad iyo hawadeedu aad buu fiican tahay aad buu xiiseeyay. marka waxa igu dhiirigeliyay inaan dalkayga imaado aan ka shaqaysto waa sidaa. aad baad ugu faraxsantahay umaleynaa marka noloshan hadda aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. yes dad baa fara badan baa igu yiraahdo maxaad New York ugu noqon weyday, maxaan ku fulayaa New York waa tan argaxisadii iyo mashaakilkaas ay jiraan oo isku dilayay magacaaga oo kaliya dhibaato kugu ah. marka dalka hooyo aaban iska imi alxamdulillah waan iska shaqaystaa. hamiga ganacsi ee Farxaan waa uu durugsanaa, waxaan u ekaa nin ay u caddahay waxa uu doonaya. hase yeeshee waxaan ii caddeen inay jiraan qaar sidiisa oo kale dibadda ka soo noqday doonayana inay sidan oo kale hawl u bilaabaan. ishu nolosha beenta ha ilowdo barafkee soo booqo ciidana. intii uu dalka ku sugnaa waxaa hawsha uu u tegay u dheeraa dalxiis uu magaalooyin fara badan ku soo maray oo aan islahaa waxaa laga yaabaa inay soo dedejiso inuu gaaro go'aanka ah inuu London ka soo dalab karto. On the Red Sea with no pirates here. Good afternoon. I'm reporting from the wonderful country called Somaliland on a wonderful day with my friends. And we're here sitting in a very traditional coffee house, a typical coffee house, and this is the way it comes. Just watch that guy. Man in action. Very good. Yes. And you can see the flag. saadaashaydii aan islahaa Cabdirashiid dalka ayuu dib u soo degi doonaa waxaan xaqiiqsaday inaanay sax ahayn. Cabdirashiidna inkastoo uu aad u jeclaystay dalka, haddana duruufaha isaga u gaarka ah aysan u saamaxaynin in uu dhowaanahan dalka dib ugu soo noqdo, taladii habaryartiisna qaato. imika aniga planska kuma jirto inaan maanta dhulka noqdo because nolol baan ku leeyahay moogta Ingiriiska, guri baan ku leeyahay, xaas baan ku leeyahay. ta kale haddaan iminka markaan shaqada ka tago maanta inay lacag aniga soo galayn dad badan baa oo dhulkii jooga ayaa iyaguna dhibaato badan gaari karta because waxaan ka mid ahay dadka maaragtay qorbahood jooga maaragtay lacag u dira dhulkii. marka hadday lacagtaas maaragtay aniga iga goodo dad badan baa anigoo qura maahay dad badan baa maanta ku xidhan. marka dadkaasna waxa ka go'ay moogtay qarashkan u dir lahaa. marka aniga waxay leedahay iminka inaan Ingiriiska joogo aan ka shaqeeyo saas maaragtay ayaa u fiican aniga iyo dadkii maaragtay igu xidhnaaba. jaamacadaha magaalada Hargeysa waxay soo saaraan arday badan oo aan badidoodu haysan shaqo ay noloshooda ku maareeyaan, iyaga oo qaar badani ku haminayaan in ay dalka ka soo hayaamaan maadaama aanay wada heli karin shaqo u qalanta cilmiga ay soo barteen. waxaase uu Cabdirashiid, Cabdikariin iyo Aadanba la wadaagay muhiimadda ay leedahay qurba joogga Soomaalidu ahi inay aqoontooda iyo dhaqaalahoodaba dib dalka ugu soo celiyaan si baahiyaha jira ay wax uga daboolaan. dadka qurbaha jooga laba siba ayay u caawin lahayn dhulka. mid waxa weeye marka hore skillska iyo waxa lagu bartay dhulka qurbaha si
sidii uga faa'iidaysan karnaan dhulka anigoo kale for example waan noqdaa marmar dad baa wax soo baraa markii ii suurtooda waan noqdaa dad baa wax soo baraa marka skills transfer marka hadday dadka qorbaha jecel hadday kari karaan intaa aad baa loogu baahan yahay dhulka taa kolay nolol kastoo adduunka ku wanaagsan waxaa jirta maxay ahayd tooy maahmaaha ay norwiijiguba leeyihiin oo la yidhaahdo butte arbra yema arbest waxay dibaddu way fiican tahay laakiin guriga kasii fiican dadkiina iyo dalkiina aa ka tagteenna xaq ayuu idinku leeyahay qof wal oo kastaaba halku ka yimid isagoo nabada oo wanaagsan ilaahay ku soo celiyo haddii aad ganacsi gashan kari weyday maaha daruuri inaad ganacsi gelisid haddii aad aqoon leedahay inaad u timaadid oo wiig ama 2 wiig volunteer adiga oo ku shaqeeya aad ku soo noqotid oo aad aragtid maxaan ku dhahdaa isbedelka aad keeni kartid shakhsi ahaan waxbarashadu waa ta u muhiimsan haddii aanay wax ka baranin dalalka ay joogaan waxa weeyaan nasiib uma helayaan dalkoodii markay ku soo noqdaan inay u faa'iideeyaan waxa ay ku faa'iideeyaan oo aqoona waa inay la yimaadaan fikradda iyo maskaxdana ay ku hayaan inay marun ku soo noqdaan dalkoodii iyo dadkoodii cidda la sugayo waa cidda xirfadda iyo aqoon iyo maxaan ku dhahdaa waxay ku soo kordhin karto mujtamaceeda leh bal marka idinka oo aan ka niyad jabin burburka badan baahida badan maxaan ku dhahdaa walaaca badan ee dalka ka muuqda inaydun isku taxallujisaan oo aad dareentaan inay wax ka bedeli kartaan investment wax la yiraahdo inay sameyn karaan dadka qurbaha jooga inta maaragtay shirkada la furi kari lahaa isku tagi kari lahaa waqti lacag inta loo ururiyo laga sameyn kari lahaa mashaariic dhulkii taasoo lacagun maaha waxay sameynaysaa waqti dad bay shaqo u furaysaa marka investment badan oo loo baahan yahay marka labada meelood baa aniga la tahay in dhulka laga caawin karo intii aan dalka ku sugnayn waxa ay dad badani inoo qireen in biilka qurbajoogu ay qoysaskooda u diraan uu yahay mid muhiim ah hase yeeshee aanu wax weyn ka qaban karin horumarinta dalka daaraha aan lagu noolaanin ee dalkii laga dhisanayo iyo dalxiiska lagu tegayo inaysan wax weyn ugu fadhiyin dhaqaalaha dalka ayay tilmaamayeen maalgelin dhaqaale iyo aqoon dib ugu noqoto dalkii in maanta baahi weyn loo qabo ayay badi dadkii aan la kulannay ay qabeen haddii labadaas la helana in wax weyn dhaqaalaha iyo nolosha dad badani iska beddelayaan ayaa ahayd midda ay isla wada qirayeen fariintaas ku socotay qurbajoogga innaga oo xambaarsan ayaan cabdirashiid aniga iyo asxaabtii inala socotayba aanu ka soo duulnay dalkii qorshaha ku darsada qurbajooga waddankeena qof kaloo ku halayso